ayaa lagu qabtay caasimadda magaalada Hargeysa. munaasabadan ay ka soo qayb galeen saraakiisha wasaaradda caafimaadka, hay'adaha caalamiga la shaqeeya wasaaradda caafimaadka iyo marti sharaf kale. Goor waxaa munaasabadaasi ka hadlay agaasimaha cisbitaalka qaaxada Dr. Cusmaan Cabdi Meegaag ayaa si qoto dheer uga warramay taariikhdii kala duwanaa oo soo maray cisbitaalkani. waxaanu tilmaamay sida looga hortagi karo xanuunkani iyo sida loo kala qaado. agaasimaha guud ee cisbitaalku waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay in dadku ay ilaashadaan nadaafadooda. waxa kale oo si qoto dheer uga dhawaajiyay inay baahiyo kala duwan ay ka jiraan cisbitaalka guud ee qaaxada, isagoo wasaaradda caafimaadka Soomaaliland u soo jeediyay in wax lala qabto. Dr. Maxamed Cabdi oo isaguna ka mid ah dhaqaatiirta ka howlgala cisbitaalka guud ee qaaxada ee magaalada Hargeysa ayaa warbixin kooban ka sheegay sida loo kala qado xanuunkani. waxaanu sheegay in cisbitaalka guud ee qaaxada ee magaalada Hargeysa uu leeyahay adeeg fiican oo dadka bilaash lagu baaro laguna daweeyo. doctorku waxa uu tilmaamay in dadka looga baahan yahay inay soo dhaweeyaan qofka qaba xanuunkan aan la takoorin. madaxa hay'adda World Vision Hargeysa Cabdinaasir Xuseen oo ka hadlay isaguna goobtaasi ayaa ka warramay sida loogu baahan yahay in kor loo qaado sidii looga hortagi lahaa xanuunkani. waxaanu tilmaamay in hay'addu sameyn doonto istiraatiijiyad lagu dabargoynayo xanuunkan qaaxada. dhanka kale waxaa iyaduna munaasabadaasi ka hadashay madaxa hay'adda caafimaadka WHO ee Soomaaliland Marwa Aasiya Cusmaan ayaa sheegtay sida loogu baahan yahay ciribtirka xanuunkani ee qaaxada. waxa kale oo Aasiya dadka Soomaaliland u soo jeedisay inay tagaan goobaha caafimaadka si looga daweeyo xanuunkani. Aasiya waxa ay sheegtay inay hay'adaha ka shaqeeya caafimaadka Soomaaliland ay diyaar u yihiin sidii loola tacaali lahaa xanuunkan qaaxada. agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Cabdi Guray oo isaguna ka hadlay madashaasi ayaa tilmaamay in wasaaradda caafimaadka Soomaaliland qorshe wanaagsan uga yaalo sidii loo dagaalami lahaa xanuunkani. agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland waxa uu sheegay in qorshaha wasaaraddu ay ka mid tahay in gobolada dalka laga sameeyo goobo caafimaad oo lagaga hortagayo xanuunkan qaaxada ee TB-da. dhinaca kale waxaa iyaduna maanta qaaxada laga xusay gobolka Togdheer. shirkadda isgaarsiinta ee loo yaqaano Somtel ayaa maanta